markay maxkamaddu aragtay xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wadhalika ad'afu al-iman arrinkan ay tahay arrin maaragtay bambaxa oo xumaantii looga bambaxay arrinkaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diinteena inoo ku sheegaya shareecadeenna suuban oo ay tahay xaaraan dad muxramka ah oo isugu tegay guri oo ku samaynaya wax diinteena khilaafsan taasna ay mas-uuliyad ka saaran tahay dowladda iyo maxkamadda oo ah inay ciqaab mariyaan sidii looga waantoodo dhibaatadaas maxkamada maaragtay gobolka ugu samaynayo arrinkaana uu yahay arrin looga dareeyanayo ay sameeyeen dhaqan xun oo waddanka soo galay ayna mudan yihiin ciqaab in la mariyo macasinadu inay tahay macnaha dadkii oo isku tegay keliya isha iyo dhegta iyo gacanta iyo wax oo dhan iyo canta iyo meesha loo soconayo waa zino arrinkaas waxay maxkamaddu ictiqaadisay wax macnaha zinaa oo xun oo ummadda maaragtay iyo dhaqankeeda iyo shareecada islaamka loogu xadgudbayo waxaana muhiim ah in macnaha caqabo la saaro sidaas darteed go-aanka maxkamadda waxay maxkamaddu ku xukuntay eedaysanayaasha 29 qof oo maxkamadda loo keenay 3 bilood oo xarig ah 1 milyan oo ganaax ah iyo wixii wiilal ah oo maaragtay meesha jooga intiiba makiinad looga xiro qalabka maxkamadda hor yaalla oo fiqsiga xumaanta lagu galayna la burburiyo